Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan ka hadlaynaa faa'iidada uu leeyahay geedka loo yaqaano bocorka ama miraha loo yaqaano bocorka. Geedka bocorka waxaa loo isticmaalaa sida qudaarta kale loo isticmaalo kale. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu u fiican yahay wadnaha, wuxuu u fiican yahay indhaha oo aragga iyo kor u qaadaa. Waxaa kaloo uu u fiican yahay lafaha. Waxa uu u fiican yahay difaaca jirka iyo kor u qaadaa. Sidoo kale qaabka u isticmaali kartid waxaa ka mid ah inaad qaab fruitis ah aad u cuntid oo jarjaratid oo qudaar kale ku dhex darsatid oo isticmaashid, inaad shiidatid oo sharaab ahaan aad u shiidatid. Waxaa ka mid ah inaad booska baradhada aad ku bedelatid oo dadka inta badan xanuunada sida macaanka oo kale qaba oo aan isticmaali karin baradhada, booska baradhada u geli karaa. Aad buu u macaan yahay. Fiitamiino, minerals, macdano baa ka buuxa. Fiitamiiniska jirka u baahan yahay oo dhan baa ku jira. Macdanta oo ku jirta waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan calcium-ka oo lafaha u fiican. Sidaan hadda bilowgiisa aan ku sheegnay, lafaha ayuu u fiican yahay. Lafaha ayuu dhisaa. Caafimaadka lafahana kor buu u qaadaa. Maadada calcium-ka ku badan. Sidoo kale waxaa ku badan ayadana fiitamiinada sida vitamin C, vitamin B9 baa ku badan. Qofkii si joogto ah u isticmaala wuxuu ka caawin karaa si joogto ah in caafimaadkiisu u joogteeyo oo difaaciisa jirka kor u qaado oo caabuqyada jirka soo weerara uu ka hortago. Baa ka mid ah dadka macaanka qabo oo kale, maadaama macaanku saameyn ku yeesho aragga. Wuxuu kor u qaadaa aragga. Wuxuu kor kaloo u qaadaa fiitamiinada calcium-ka, macdanta calcium-ka, haddii Ilaahay ku idmahayo magnesium-ka. Waxaan kula talin lahaa dadka isticmaala baradhada inay ku beddeshaan maadaama ay aad u nafaqo badan yahay. Nafaqada iyo nutrition-ka ku jirana ay ka badan tahay qudaaraha qayb ka mid ah. Waa geed si fiican u baxa oo fudud in la beero. Fiidiyowgeena maanta wuxuu ku saabsanaa geedka loo yaqaano bocorka. Fadlan subscribe.